ولا لكلا ديره أردنا ما ننا الشعب كي سيبا وحي أبا المرين وقدقين إن أي قري قصر أودسان ننا شعب كي سيبا كعبانيا انتو دولكي أي دقنايين كبركعيي إيغو هباريا واركو خبارا وارا ديك دورتي والول إيا ولا علها كوغريدو انت إسلام هاك دورتي حسرو والول إيا ولا عون إلهي كاغا سوغ عوضي واقعا ودكذا صلاة دي وحد سوغ لحاها دكذا لله نربا جرايا ليل علي حسن بيو هاي حسرو حرامك الراعي يعين والمبكهوك كليا ما أهان فرينتا ما أنتي فرماجو iyo teamkiisa warbaahintu ay baahiyeen wax ku socda xasan sheekh kaliya xataa waxay ku socotaa musharaxiinta mucaaradka ah oo uu ugu weyn yahay Saciid Cabdilaahi Dani oo mar saddexaad u ordaya inuu madaxweyne Soomaaliya noqdo isagoo labadii jeer ee hore guuldarrooyin culculus kala kulmay hoolka teendada Avision Saciid Dani bay ku socotaa fariinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا سود وهذا واللعبة فبراير سنة كلابا كنا بعطني شن ورجلي مدحين فرماجة وندل استاجدونا ساعدنا إن ورباهين تبتين كي مدحين فرماجة يباهين قريجان حلو هرنا معضين حل كان حرق اللي جرو برنامج كنا كدل استاجدونا وجد كقطة الدير اللي قال لي هاي ماذا بكاس وندل استاجدونا وحين فرين تنقصعته جامية كاستوها أنت ضدك كنت تكرفله umada boobaha hantideeda in shacabka wax ahsan aysan u sameeyeen maalintu kursiga baneeyay ee shacabku ay habaari doonaan qodobkayga labaad waxa weeye madaxweyne farmaajo laba bari koor ayuu u safray Turkiga wuxuuna helay casuumaad rasmi ah oo ka timid xubno sarsare oo ka tirsan sirdoonka Turkiga iyo diblomaasiyiin sarsare oo Turkish ah kulamo albaabadu u xiran yihiin ayaa ka dhacay Ankara xogi ugu dambeeyay aan soo xuraana ayaan idin la wadaagi doonaa ayaa wax dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo xubnahaasi muhiimka ah ee Turkiga ee casuumay madaxweynaha qodobkayga saddexaad waxa weeye madaxweyne farmaajo uu ka fursad badan yahay dhamaanba musharaxiinta xilligan tartamaysa xataa Xasan Sheekh Maxamuud maxay tahay sababaha barnaamijkan aynu kula wadaagi doonaa ee qodobkayga ugu dambeeyo ah xilligan hadda xaaladdu siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo halkaas maraysa waxa la gudboon guud ahaanba shacabka inta la wadaagin qodobadaasi muhiimka ah walaalayaal guriga madaxweyne farmaajo ayaa xariga laga jar gurigan ololihiisa waxa loogu magac daray mahadsanid madaxweyne waxa laga dhisay deegaanka Ceel Jaalle oo magaalada Marka ku yaala fariinta ay ka dhigan tahay xilligan in la baahiyo gurigan oo xilli hore dhamaadayna waa in madaxweyne farmaajo uu shacabka tusiyo sida ay ugu abaalgudeen xilli doorashadii Soomaaliya ay qarka inagu soo hayso sidoo kale waa fariin loo dirayo hogaamiyaasha gobolada ee xilka dalka ugu sareeya doonaya iyo madaxtooyada Soomaaliya oo shacabku ka cabanaya madaxweyne Xasan Sheekh waxyaabo badan oo ku wanaagsan yahay baa jira laakiin si Ilaahay wuxuu ku saliday ulkii danta guud ayuu Ilaahay ku saliday warbixintana way ku jirtay waad aragteen madaxweyne farmaajo oo soo bandhigayo amaanadii uu ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud aysan xabadi ka maqnayn ujeedka horta fariinta loo dirayo waa musharaxiinta ama kuwa hadda jooga ama kuwa xukunka jooga ee hantida shacabka boobay in madaxweyne farmaajo uu yahay nin loo abaalguday iyagana ay abaal dadkii uga dhigeen inay boobaan waa qodobka inay qabsatid Xasan kuma socota fariintu danina way ku socotaa ilaa badan ku dhaarshay farmaajo iyo dani reer ahaan waa daarood farmaajo guriga lagama dhisin caabud waaqiyo gado iyo garbahaare gurigiisa waxa laga dhisay shabeellada hoose Marka waa laga dhisay waa meel aysan qabiilkiisu joogin waxay ku tusinaysaa madaxweyne farmaajo inuu nin xaduudaha qabiilka dhaafay uu yahay oo uu yahay nin qaran dadka dhisay gurigana waa shacabka Soomaaliyeed daliya dibad iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bal u fiirso okay madaxweyne farmaajo reer Marka way ooyayaan iyagiiba ooyayay reer Ceel Jaalle
iyagoo le madaxweyne nala soo deg way oynayaan ilmaa ka socoto qabiilkiisi ma ahan deegaankan waa deegaan Soomaaliya laakiin si reerkiisa ma degaan markaynu eegna Soomaalida maanta inuu qabiil halakay walu fiirsatay oynayaan sidan فبعد خير الله سيء ku beertay shabeelada hoose waxaa isku beertay geed jannada waxaa isku beertay geed farmaajo waxba loo qabtay war farmaajo waxaa saayinan ilaahay dadku soo diray haddana ilaahay noo soo celiyo aniga waxaan leeyahay farmaajo madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo walaalkaya waan ku jecelnahay marka imaaw سعيد لي يا مدحنا بدرة صدق جارو ترتمي لما جارو ترتمي مرة كان ينو ترتمره قول دراين علوس بانا كنا فرينتن إساقي كو سعوتا سعيدني أن إسكدا قري إن لو دسي شعب كيبا هباريا guri hal guri buu farmaajo shacabku u dhisayna guryo ay qoyskiisu ka dhisteen 7 sano oo hantida Puntland ay dhuuqayaan guriga dani hadda ay qoyskiisu dhisteen wuxuu ku yaalaa deegaan kale isagoo magaca ceel wata oo la yiraahdo ceel haare oo duleedka qardha ah dhul beer ah oo weyn dhul beereed iyo meeliyo xoolo daaqeenka ah ayay xeen daabtay halka farmaajo ay u ooyaan dad aysan isku qabiil ahayn oo reer markaa oo ay leeyihiin nala soo deg madaxweyne siciidani waxaa ka ooyaya isaga oo cabasho ka qaba ma ahan hawiye ma ahan dir ma ahan digil iyo marifle ma ahan jareerweyne ma ahan daarood ma ahan harti ma ahan majeerteen ma ahan maxamuud saleebaan ما أهل عثمان محمود أو يسوي شفيدي سي هو سايتاي نمان محمود يوسف لي هذا راس كيسو سايل مادر لما مادر سدحدين ماشو كويس سنه واقردو ماشو غرياها اسكدستين واقردو haday noogeen farmaajo marka looga ooyayo leey soo deg isaga waa laga cabaadaya tolkiis baa ka cabaadayo dhulkoodii uu xirmaystay isaga iyo naagtiisu professor hadda dhisma ka socdo meeshi oo xaaska madaxweynuhu ay dhisayso meeshaas oo dhisma socdo meesha dhismaysa afar oday baanu ku tagnay laakiin waxa nasiib darro ah oo wax laga naxa ah in ninkii dhamaa oo maxamed yuusuf oo marwada madaxweynaha walaalkeeda ahaa oo furdada joogay inuu shalay soo wacay isagoo igu hanjabayo inaa galabta idilayo isagoo raba in loogu fasaxo dhulkaas in dhulka la xiro waxaa maanta mooshinka furmay kiciyay oo meel walba dhagax yaal meel walbana calaamadu taal guriga hadda halka laga dhisay oo mas'uuliyiinta Puntland qayb kamid ah ka dhistay dhismahaas markii ka horeyso cagafta la mariyay baa mooshinkan ka hadaba la kala dheereey oradna ma indhahaaga ku macallina ninna jifidiisii hoose ayuu boobayaa ninna Soomaali dad ay wadaagaan ayaa u hilowsan oo bareeyo oo la soo tagay meesha aan ka leeyahay warfariintan kuma socoto xasan kaliya oo shacabka reer muqdisho ay habaareen intuu dhulkoodii ka barakiciyay cagaf galiyay war waxay fariintan ku socotaa xataa hogaamiyaasha gobolada ka rogolaba sar qodobada kale aan u gudbo waxaan ku hormarayaa qodobka madaxweyne farmaajo ama waan isku wada darayaa waxaan dul istaagi doonaa qodobka koowaad turkiga oo xilligan farmaajo u arka dooqa koowaad ee bedelaya xasan sheekh بدل كلامها في تركيا سببتي وعزومين كل ماذا كان عيان كرا قضب كي قال بعض فرماجو مشرح أو فرصة بدل المشرحين تا سببتنا لا إذا لو ده بدونا محيط فرين تلقوا بدون شعب كالصومالية تاجرش نبضي نرول يجود هم بمد الصومالي حنكور مرة يا سببت حل قال مدحين فرماجو وفرصة بدل هاي معارض كالدنيا كرسي سريع دلك مركل اللي يجو جهاد أي وصعة سياسة الصومالية اللي وجود ديار جروب يدور الشدة لما كنا نباتين دوام حاسب حيث بدل وين موجنا جين مدحين استقالات الجمهورية مع فدرال الصومالية
mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilligan haysto fursaddii ugu horeysay oo uu dib ugu soo laaban lahaa filla Soomaaliya. haddaba falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin xilligan in madaxweyne farmaajo uu ka miisaan iyo fursado badan yahay dhammaan mucaaradka kale sababo la xiriira mowqifkiisa wadaniga ah ee saaxiibada caalamiga ah ee uu dalka u soo dooray ama isagu u soo xulay. kow, farmaajo waa hogaamiye wadani ah oo aan gorgortan gelin. taariikhda dhow ee Soomaaliya waxay marqaati ka tahay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay hogaamiye aan marnaba qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya ku bedelan hanti ama taageero siyaasadeed oo laga helayo wadan doonaya in Soomaaliya la burburiyo ama la kala gooyo. xilligan dalkan uu wajahayo faragelin shisheeye oo toos ah, shacabka Soomaaliyeed waxay dib u xasuusanayaan muddadiisii oo lagu yaqaanay dal iyo dad mid ah iyo dal jacayl isagoo ka duulaya danta guud. maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu dhisay xiriiro ku salaysan is-ixtiraam isagoo quwadaha shisheeye ee difaacaya qarankeena sida Turkiga kula saaxiibay kaliya danta Soomaaliya, ma ahan dan shakhsi. qodobka labaad uga fursad badan yahay mucaaradka xilligan iyo saameynta sirdoonka shisheeye. farqiga weyn ee u dhaxeeya farmaajo iyo musharaxiinta kale wuxuu yahay in musharaxiinta kale ololahooda laga hagayo sirdoonno shisheeye iyaga. dhowaan waxaad ogeydeen inay ku kulmeen Kenya, intooda badan mucaaradka ay agaasimayaan sirdoonka dalalka Kenya iyo Imaaraadka, kuwaas oo markasta raadinaya hogaamiye ay u fududahay inay ka fushadaan danta ay ka leeyihiin badda iyo bariga Soomaaliya. tani waxay mucaaradka ka dhigtay kuwo lumiyay kalsoonidii shacabka. marqaati waxaa ka tirin Kenya lagu soo shiray hadda Imaaraadkuna uu fangareynayo maadaama loo arko qalab shisheeye. mucaaradka xilliga tartamaya dhammaantoodba waa quwado shisheeye ayaa wata. qodobka saddexaad, farmaajo mowqifkiisa guuldarrada xasan sheekh tan iyo markii xil kala wareegay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii May 2022 dalka wuxuu ka leexiyay jidkii dowladnimada ee xoogganeed. si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxay soo baxday markii dowladda xilligan jirta ay ku qasbanaatay inay dib ugu laabato jihadii madaxweyne farmaajo. xasan sheekh wuxuu isla markii xilka loo doortay soo celiyay saameyntii Imaaraadka, laakiin markuu arkay inay Imaaraadku khatar ku yihiin qarannimada wuxuu ku qasbanaaday inuu cayriyo diblomaasiyiintoodii heshiisyadii badda iyo dekedaha Soomaaliya uu ka baxo horaantii 2026. tanna waxay caddayn u tahay in mowqifka farmaajo ee ahaa Soomaaliya lagama xukumi karo Abu Dhabi uu ahaa kii saxda ah, taas oo xilligan ka dhigtay farmaajo